Dr. Cumar Cabdiraxmaan Cali Cawaale Xabeeb waxa uu inta badan u waxbarashadiisa aasaasiga uu ku qaatay magaalada tani caasimadda ee Muqdisho. Waxa uu dugsiga sare uga baxay iskuulka hoose dhexe iyo sare ee loo yaqaan Alfa sanad dugsiyeedkii 2008-2009. Waxa uu waxbarashadiisa heerka jaamacadda ee darajada Paashka uu ka qaatay kuliyadda daaweynta iyo qalinka ee jaamacadda Banaadir sanadka 2014-2015. Waxa uu sanadkii 2016 diyaariyey koorso waxbarasho oo la xiriirta caafimaadka dhimirka. Isla sanadkii 2016 waxa uu Dr. Cumar uu diyaariyey qaabka waxbarashada aan fasalka loo xaadirin ee loo yaqaan distance learning, koorso ku saabsan caafimaadka dhimirka taasoo ay iska kaashanayeen hay'adda caafimaadka dhimirka ee Xabeeb iyo weliba xirfadlayaasha caafimaadka ee loo yaqaan Mercy Care ee fadhigooda uu yahay dalka UK. Waa aasaasaha weliba sidoo kale gudoomiyaha guud ee ururka mutadawiciinta dhiig ku deeqayaasha Soomaaliyeed ee ka howlgala caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Dr. Cumar Xabeeb waxa uu hadda uu ka shaqeeyay qaab isku xira caafimaad oo markaasi ku aadan xagga dhimirka ahi.